Labad saaxiibayaal meel walba aad joogtaan soo dhawaada waa barnaamijkii codka Oblas Inbay Soomaali. Waxaad waraysigan iyo waraysidii hore aad ka helisaan Maariya Xuseen Channel. Sidoo kale waxaad naga dhageysanaysaan adeega podcastiga. Waa qaybtii 9aad ee season 2. Waxa ay la joogtaa caawa Fadxiye Xasan oo ka mid ah teamka Oblas Global. Fadxiye waa ganacsato ku ganacsata habka online-ka. Sidoo kale Fadxiye waxay hogaaminaysaa team gaaraya ilaa 700 qof. waxayna kala joogaan ilaa 22 wadan waxayna Fadxiye hadda ku nooshahay wadanka Canada. Waxay xaqiijisay guulo badan muddada ku jirtay online-ka. waan ku faraxsanahay inay waqtigeeda qaaliga ayna siiso inoogana faa'iideyso fursadda qaaliga ay haleeshay. ugu horeyn ku soo dhawo walaashii Fadxiye codka Oblas Inbay Soomaali. aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalo Maariya, waan dhawahay. mahadsanid walaashii Fadxiye sida wanaagsan aad barnaamijkan noogla soo qayb qaadatay maadaama aniga iyo teamku aan si wanaagsan ku garanayno waa tuma Fadxiye Xasan. aad baad u mahadsantahay walaalo Maariya. Fadxiye Xasan waxa weeyaan gabar Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Canada, qaas ahaan magaalada Ottawa ee caasimadda waa wadanka Canada. Wadanka Canada waxaan imiday hadda waxaan joogaa imika muddo 22 sanadood 22kii baan ku sii socdaa. waxaan ka imiday wadanka Djibouti. waxaanan u shaqeeyaa hadda wasaaradda federaalka ee Canada in imika gaadhisay ilaa iyo 15 sanadood ayaan u shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka ee wasaaradda federaalka ee cashuuraha ee Canada ayaan u shaqeeyaa. ما شاء الله وحرجيني inaad Fadxiye si wanaagsan aad uga bogateen. Fadxiye waa tuma maadaama ay ku wada sheekaysanayno Fadxiye sida ugu wanaagsan qof walba uga faa'iideysan karo aalada loo yaqaan online-ka maadaama technology-gu iyo horumarku uu aad u sii ballaaranayo waqtigan ay ku guda jirno sidee looga faa'iideysan karaa online-ka. online-ka aad iyo aad horta su'aal aad wanaagsan weeyaan walaal Maariya. online-ka sida looga faa'iideysan karay maanta waxa la ogaaday intii horeba waa la ogaa laakiin tii hadda inta ay imika cuduradan ay dhaceen 2020kii waxa la ogaaday in online adduunkii isugu wada biyo shubanayo. haddii ay noqoto shaqooyinkii guriga laga shaqeynayay, haddii ay noqoto iskuulkii, haddii ay noqoto cuntadii la iibsanayay, online-ka aad iyo aad ba maanta isugu wada biyo shubanaysa. faa'iidaduna waxay tahay in aad looga faa'iideysanayo online-ka adiga oo gurigaagii fadhiya. haddii ay gabadhu guri caruur leedahay oo gurigeeda joogto, haddii ayna caruur lahayn, haddii ay shaqo kale hayso, in online-ka maanta aad iyo aad looga faa'iideysan karo. taas waxaana tusaysa kompaniyo badan oo online imika ina dukaano badan xitaa wadanadan aanu joogno meelo badan suuqyo badan la xidhay oo isugu wada biyo shubteen online-ka. marka online-ku aad iyo aad ayuu faa'iido u leeyahay. waana qarankan century-gan aynu joogno maanta waa online-ku isaga u horeeya oona meesha qule ee ganacsi iyo dhaqaale qofkii doonaya inuu dhaqaale sameeyo uu ka samayn karaayo. waan ogahay online-ku wax badan inuu soo kordhiyay horumar ballaaranna inoo keenay waqtigan hadda ku guda jirno si wanaagsan in dad badan uga faa'iideystaan baan rajeynayaa online-ka. waxaan ogahay Fadxiye inaad ka ganacsato ilaa 200 oo wadan. sidee bay kugu suurta gashay inaad ka ganacsato ilaa 200 oo wadan? waxay iigu suurta gashay inaan ka shaqaysto kombanigaygan aan la shaqeeyo ee Oblas Global. waa kombani 200 oo wadan iyo ganacsigiisa laga iibiyaa ama laga gadan karaa ama laga qaataa qof walba sidoo u yaqaano. maadaama uu ganacsigan aanu ku jirno uu online yahay adduunka dacaladiisa meeshii aad joogtidoo dhanba waad ganacsigaaga waad ka iibin kartaa, wuu ka shaqaynayaa. marka annaka 200 oo wadan in ka badan ayaa kombanigeena Oblas ganacsigeeda uu ka shaqeeyaa uu ka socdaa oo laga iibiyaa. taas waxay ka dhigan tahay waxaan ku leenahay ofisyo adduunka meel dacaladiisa faraha badan baa jooga. waxa jooga walaalo sidaydaas oo kale ah oo businesska ku jira oo ganacsi leh oo online store leh oo alaabtooda ka iibinaya. waxa jooga uu ku leeyahay macaamiishayada adduunka meel kasta ay joogaan ina kombanigayga isagoo Canada jooga uu qof walba adduunka meel kasta uu joogo wixii uu iibsado dukaanka online-ka uu ka iibsado suuqa online-ka loo dirayo. sidaas looga ganacsada 200 iyo in ka badan oo wadan. runtii waa fursad unique ah intaan ka ogahay uu soo kordhiyay company Oblas Global. Fadxiye waxaad ka mid tahay company caalami ah oo international ah
oo ilaa 200 oo wadan ka howlgala goormaad ku soo biirtay kambaniga sidoo kalena sababtaad ku soo biirtay noo raac waad mahadsantahay walaal Maariya aniga waxaan ku soo biiray 2018kii ganacsigan inta aanan ganacsiga ku soo biirin waxa markii saan horeba u sheegay aan u shaqeeyo wasaaradda federaalka ee Canada marka aan shaqada bilaabay aniga oo jidiida ayaa meesha cashuurahan joogay marka laba qof oo hawlgala ayaa shaqadii dib ugu soo noqday mid kamida ayaa su'aasha weydiiyay maxay idin soo celiyay qofku markuu hawlgal galaan waxaan moodayay in adduunka aad iska fadhiisanayso shirshirayso khalaas shaqadii wixii la iloobayo marka gabadha mid kamida waxay iigu jawaabtay Fatxi waxay tiri noloshii sixir barar baa dhacay waa adduunku waa isbedelay wixiina 3 sanadood baan shaqaynayay bay tiri maanta markii aan shaqadii ka fadhiistana lacagtii ay dawladdu isiinayso iguma filabay tiri aniga si inaan wax ku iibsado ku noolaado sidii aan rabay maadaama aan igu filaanay waxaan sameeyay bay tiri inta waqtiga ay cashuuruhu socdaan in aan shaqada dib ugu soo noqdo oon 4 bilood cashuuruhu socdaan shaqaysto deena lacagta aan ku kabo waxa ay dawladdu isiiso markay gabadhaas sidaa iga tiri aniga maskaxdeeda markiiba maxaa galay in maadaama anigoo weyn aan gurigan wadankan aan imiday oo aanan anoo yareen aan imiday oon shaqaynayo waxaan dadkii ku dhashay ee wadanka joogayba haddii ay maanta ayna markay hawlgab noqdaan ay fadhiistaan ayna wixii la siinaya aanu ku filaanayn aniga hadda waa la iisii sheegay waa inaan anigu dadaalayo waxyaabo kala sameystaa marka kulleyba maskaxdayda way ku jirtay in aan online ama dhaqaale kale aan sameeyo si aan aniguna hadhow toolada aanan ugu baahnayn aan shaqadii dib ugu soo noqdo marka sidaa aan maskaxdayda iga jirtay waa ifraax oo meel ka wada shaqayn jirnay walaashay ay markaa ii soo bandhigtay fursadani aad iyo aad markay sidaa igu sheegtayba isla markii reed coffee baanu fadhiisanay intii ay ii micnaysayba markiiba waan ku raacay isla maalintiiba waan soo galay dhinaca baan u eegay meeshii coffee-gii aan fadhinay baan ku soo galon qayb xubin ka noqday company-ga marka sidaasaan ku soo galay company-ga sidiina wali maanta waan ugu jiraa inkasta oo aan dhinacna aan shaqeeyo oo full time ay shaqadii igu badnayd haddana waan ku jiraayo waan wadaa waxa aan ka mid noqday anigu markii dadkii ugu horreeyay ee ganacsigeena af Soomaali ku soo sharaxay wadanka Canada markii aan ka baxay aniga oo sanadna company-ga ku jirin ayaan 2019kii aan wadankii hooyo tagay marka intaan ku sii socday waxaan ku fadhiistay week waxaan doonayay inaan shirshir iskaga qaato Istanbul Turkiga anoo shirshirkii ku jira baan haddana business kana waday maalintii ugu horeysay qofkii ugu horeeyay ka sharaxa af Soomaali businesskeena wadan kale isagoo jooga anaa ugu horeeyay oo maqsin qol wada rag iyo dumar oo rag u badnaayeen waa markii ugu horeysay rag businesskeena aanu sharaxay 2019 sidiina maanta waan ugu jiraa fursad aad iyo aad wanaagsan weeyaan kamana muuqdo qof inaan doonayo inaan ka hado ama aan meel kale ka maro aad iyo aadna waan ugu hamigaygu ugu weyn yahay inaan ku sii jiro oon businesskayga aad u sii badiyo haddii la yiraahdo waa fursad weyn oo aad xaleeshay walaashay Fatxiya maadaama dad badan idin dhageysanayaan oo u baahan inay ka qayb qaataan kambanigan iyo fursadaha ku duugan muxuu soo bandhigaa kambaniga Oblas Global wuxuu soo bandhigaa waxaanu leenahay 5 suuq qofku markuu ka noqdo xubin ka noqdo company-geena 5 suuq ayuu ka ganacsanaya 5taas suuq oo ah suuqa qurxinta korka beauty-ga loo yaqaano suuqa fashion-ka ah ee dharka iyo alaabada la xidhanayo loo yaqaano suuqa caafimaadka ee loo isaguna oo health-ga ah oo aanu goojadeeda Fountain of Life ay ku jirto waxa kale uu ku jira suuqan kale ee isagana wixii personal alaab la isticmaalayo haday cadaygii noqoto haday kreemyadii noqoto iyo imika suuq kale oo ku soo biiray oo la yiraahdo 3.0 oo ah suuqan aan lacagtii hadda imika bedilaya iyo baanankii bedeli doona hadii la yiraahdo soo markuu qofku soo galo 5taas suuq ayuu ka ganacsanayaa oo e-commerce platform weyn ay company-ga Oblas Global siinayso 5taas suuq oo marka la isku geeyo lacagtooda ay noqonayso waxaan afka western-ga ku yiraahdaan trillion ay lacagtoodu ay isku noqoto ku soo gali doona hadii la yiraahdo horumar ballaaran ayaad sameysay intaad ku guda jirtay online-ka dhexdiisa arintaasi maxay kaaga dhigmay aad iyo aad horumar ballaaran waanu sameeyay teamkaygu aad buu u weyn yahay adduunka dacaladiisa way joogaan in 22 wadan hadda ka sii badanayaan ayay joogaan hadii la yiraahdo
waxa kale oo aniga iiga faa'iiday waxaan aad oranaysin personal development oo maanta halkaas kuma soo hor fadhiisanayeenoo aan desa ugu micnaynayo waqti bay qaadataa inuu qofku intuu shaashada soo fadhiisto uu ka hadlo ama uu micneeyo ganacsiga taas waxaa fursadda ii siisay businesska aan ku jirno trainingyada lagu siinayo tababarada lagu siinayo lagu barayo sida aad business dhaqaalahaaga ganacsigaaga aad dhaqaale uga samayn lahayd sida adiga naftaada aad personal development kan oo aad ka bixi lahayd waxyaabahaas oo kale intaad shaashada soo fadhiisatid aad u micnayn lahayd aad iyo aad ayay uga faa'iidaysaa kombanigaygu oona waxaasoo dhan ayna qofna lacag lagu chargeyna bilaash lagu wada siiyo uu ku hela dad badan ayaa isweydiinaya sidee fursadan looga faa'iidaysan karaa khaasatan kambaniga Oblas Global waxa looga faa'iidaysan karaa laba nooc marka qofku uu doonayo ama uu inuu xubin ka noqdo uu soo galayo marka isagii baabada ganacsigii ku biiraya ama wuxuu noqon karaa macaamil buu noo noqon karaayo alaab buu naga iibsan karaa so markuu qofku doonayo xubin inuu ka noqdo laba suuq baanu leenahay so labadaas suuq oo midna lifestyle advisor la yiraahdo midna brand partner la yiraahdo labadaas ayuu mid ka soo gali karaa ama sida aan sheegay macaamil buu noo noqon karaa oo alaabteenu ka faa'iideysan karaa isaga oo waliba qiimo jaban ku helaya marka uu dhowr bilood intuu wax ka iibsado mar walba discount la siinayo ama qiimo jabin la siin doono ama uu dad kale markuu noo keeno aad iyo aad ayuu qofka xitaa macaamilka uga faa'iidaya Fadxiya intaan ogahay qof walba wuxuu raadinayaa dhaqaale dhaxalgal inuu sameeyo mar uun kambaniga Oblas Global maadaama uu ku jiro suuqa online-ka dhaqaale intee leeg ayaa laga sameyn karaa kambaniga Oblas Global aad iyo aad ayaa dhaqaale fiican looga sameyn karaa qofku marka uu u yar yahay soo galo uu lifestyle hadduu ku soo galo toddobaadkii wuxuu ka sameyn karaa $1,000 iyo wax ka badan marka waa darajada ugu hooseysa ee lacag laga sameyn karaayo dhaqaale aad wanaagsan laga sameyn karaayo inkasta oo suuqa kale ee brand partnerka lacag laga sameeyo laakiin tii haddana toddobaadkiiba 1,000 marka uu qofku uu darajada ugu sareysa uu ka gaadho wuxuu ka sameyn karaa toddobaadkiiba 60,000 taas oo suurta gelinaysa inuu sanadkii 3 malyan iyo dheedhee lacag ah oo Canadian uu ka sameeyo qofku marka aad iyo aad ayaa kambaniga dhaqaale fiican looga sameeyaa waana wayna jiraan dad badan oo dhaqaale wanaagsan oo aad u weyn ka sameeyo mar walba oo sharaxayna businesskeena waanu ku soo saarnaa adduunka dacaladiisana jooga oo aan Canada oo qura joogin Afrika qaar joogan qaarna Canada joogan qaarna adduunka dhinacyadiisa joogan lacag aad iyo aad wanaagsan in laga sameeyo dhaqaale fiican ما شاء الله وحرجين إن دad badan ka faa'iideysteen dhaqaalaha laga sameyn karo Oblas Global maadaama uu ku jiro suuqa online-ka wax caqabadaha ka hor yimaadeen markay hawsha bilow ku wahay caqabado aad iyo aad way ka hor imanayaan haddii ay noqoto familygaaga inay noqoto ama asxaabta noqoto ama siyaabo kaleba u noqoto inta dad ee ku oranaysa online waxba lagama sameeyo way dadku waxay isku wada laaqeen online-kii suuqii hagaagsanaayo socday iyo suuqyo aan hagaagsanayno iska tuugo lagu sameeyo marka waxay maadaama uu qofkii si fiican u fahamsanayn marka uu soo gashidba dad baa ka hor imanaya oo ku oranaya waxba lagama sameeynayo halkan maxaa kugu daaliyay waqtigaagii baad iska ridaysaa laakiin tii inaad waxa soo dad anigu dhag uma dhigin oo qof walba uu oranayay waxba lagama iibsanayay maxaad suuqan ku galiyay waa suuq tuuga waxna lagu sameeyaa suuqan inuu caadi oo legit uu yahay waa inuu qofkii barto uu raadiyo isagu markuu meesha soo galo inuu yiraahdo markuu qofka idhaa fursad u soo diro waxa mar walba wanaagsan fursadda lagu soo diro ee lagu wadaago walaalka kula wadaago inaad mar walba qofku iska eego uu wareysto uu yiraahdo suuqan muxuu ku socdaa oo la baaro adduunka sidii hore imka lama aha wax walba Google-ka xitaa dad ka helaysa adigoon dadba wareysanin marka caqabado way jiraan xagga dadka kaaga imanaya qaar waxa jira maadaama ay suuqu kolkol uu iska yaraa adkaan doono laakiin tii mar walbana caqabad walba waxa laga soo gaaraa waxa gaaladu tiraahdaa Rome maalin qura laguma dhisin ina wax walba tababar bay u baahan tahay inaad training qaadatid oo tababar ka qaadatid si aad caqabadahaas uga gudubtid laakiin kullayba in badan way kula soo gaarayaan aniga taa aan family iyo asxaabta iyo dadka aan ahayn waxa kale oo ka soo gaaraysa maadaama aan
caafimaad baa qofka soo gaarayo kolbu ka yara fadhiisanayaa suuqii shaqooyinkii oo kugu badan oo mar walba dee laisla yara daba ordaayo laakiin tii haddana mar walba qof walba siduu u maareeyo ama uu suuq u dhigo uu doonayo markuu samaynayo aad ganacsi aad soo gashid waa inaad mar walba plan la timaadid marka insha Allah qof walba markuu dadaalo de waa laga baxayaa caqabadii laakiin tii bilaa caqabadii ma jirto waa run mar walba caqabadii way ka hor imanaysaa laakiin tii waa inuu qofku focus ahaado uu la yimaado iyo meesha u socdo waa inuu ogaado haddii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad wax walba dadka ku cusub markaad keento dadku way iska caabinayaan sababtuna waxa weeye dadku wixii ma fahansana wuxuun baa looga baahan yahay qofkan fursadan wada inuu fahansiiyo waxaana ku xiran fikirkiisa iyo dadaalkiisa iyo waqtigiisa inuu geliyo siduu ka mir dhaliyo horumarku doonayo waxaan ogahay Fadxiya inaad dad badan oo Soomaaliyeed uga faa'iideysay fursadan hadda tiimkaagu waa meeqa intee waddan kala joogaan hadda tiimkaygu aad iyo aad bay imika u sii badanayaan way sii socdaan waxaana ku tala jiraa inay intaa ka sii bataan ilaa iyo in gaadhaysa imika 600 ka badan oo 700 ku sii socota ayaa tiimkayga aniga ku jirta hadda waxaana kala wada joogaa 22 wadan sida ay u badan yihiin in badan Afrika ay joogtaa wadankeennii hooyo ayuu ku badan yahay tiimka badankiisa joogaa Canada qaar baa jooga markaas aad iyo aad haddana waa ugu sii tala jiraa in ay insha Allah uu sii kobco sii weynaado haddii Ilaahay yiraahdo tiimku faa'iidooyinka qof walo oo walaalkaayo ku soo xud saaran ama kula soo hadla ama aad businesska u micnaysana waxaan ognahay ina uu ka faa'iidayo faa'iido looga uu ka qaadanayo haddii Ilaahay yiraahdo kii wax naga iibsadana inuu ka faa'iidayo kii soo gala xubin ka noqdaana inuu aad iyo aad uga faa'iidayo waa iyo maanta qof kasta oo soo galay tiimkeena soo galo ganacsigeena soo galay qof aan ka faa'iidin haba yaraatee ma jirto maanta aad iyo aad ayuu qof walba uga faa'iiday uu businesska markuu soo galo ama ganacsiga uu soo galo uu ka qaaday haddana waxaan ku sii tala jiraa inuu tiimkaygu sii kordho insha Allah marka uu de tiimku weynaadana Soomaalidii kale iyo de uga faa'iideena waxaad uga faa'iideynaysaa adduunweynihii kale oo dhan baad uga faa'iideynaysaa iyo dadkii wadankii joogay ina waxa aan ku tala jiraa ay aniga ila aan doonaya inaan sameeyo marka aan businesskayga heer aan ka gaadho inaan community dib loogu noqdo oo wadanadii inta la tago iskuulo caruura iskuulada tagaya familiyo danyara ah dadkaas oo dhan looga faa'iideeyo oo aan waxyaabo badan oo gacan qabsiga ku furtaan loo sameeyo insha Allah ma sha Allah ma ku bogaadinayna ilaahayna himiga iyo higsiga ilaahay ha ku rumeeyo amiin muxuu yahay higsigaagu Fadxiya والله horta wax imaka waan hayaa wax badan laakiin tika u horeeyo waa inuu wuxuu noqdo markaad hiigsanaysid wax aad qaban karaysid ama aad soo taaban kartid aniga waxaan rabaa marka aan businesska insha Allah imaka waxaan ku tala jiraa in aan si aan businesskayga u xoojiyo aan haba yaraatay horta shaqadaydan dawladda aan ka fadhiisto haddii Ilaahay yiraahdo sanadada inagu soo socda hiigsigayga ugu horeeya waa kaasi ka ku xiga marka aan saa uga fadhiisto aan de ka fursado aan fursadaydan businesska aan ay ii weynaato oo shaqadayda ka farabaxo in aan haba yaraatay dadkeennii iyo wadankeenii dadkii joogay haddii Ilaahay yiraahdo inta aan dib ugu noqdo aan faamiyada danyarada ah dumarka single motherka rag u joogin ee caruur kursanaya ina dadka aan caawino haddii alla yiraahdo ama caruur scholarship laga bixiyo ama hooyooyinka suuqyo loo furo ay iyaguna caruurahooda ay u kursadaan ay uga faa'iideystaan taas waa taa horeeyaan ku jiro in xagga dumarka aad iyo aad xoog aan saar haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah Oblos Global kaliya ma qofku inuu shaqadiisa dhaqaale ka sameeyo laakiin fursad weyn oo dadka lagu bedelayo qofka doonaya inuu Fadxiya la soo xiriiro halkee ka heli karaa wuxuu ka heli karaa ama dukaankayga Fadxiya's boutique ayuu la soo xiriiri karaa haddii Ilaahay yiraahdo ama WhatsApp-kayga oo aan halkaas soo dhigi karno ayuu la soo xiriiri karaa haddii alla yiraahdo ama email-kayga ma jiraan Facebook page ama Instagram aad isticmaasho oo aad u sheegi lahayd waxa ku qoran dadka waan u sheegayaa haa Facebook-kayga waxa weeyaan Fadxiya Xasan ay igala soo xiriiri karaan dukaankayga sidaan u sheegay Fadxiya's boutique
onlineka suuqa onlinekeen haysto instagramkayga waxa weeyaan fatxiya 2011 haddii ilaahay yidhaahdo insha allah dhammaan linkiyada Fadxiya Xasan waxaan kusoo lifaaqaya waraysigan. Farxiya maxay tahay talada ama fariinta ugu dambeysa dadkaaga Soomaaliyeed aad la wadaagi lahayd? talada oo aan la wadaagi lahaa walaalahayga Soomaaliyeed waxa weeyaan ha moogaanina waxa ka maqnaanina fursadda maanta waa fursad sanadkii ama qarnigiiba mar dadka soo gaadha marka qofkii doonayo nala soo jaanqaad warayso walaalaha dhaqaale ka sameynaya Oplans Global Company-gayga haddii aad rabtaan ku soo biira nala soo xiriira annaga faahfaahin ka badan idinka siinayna laakiin tii ogaada online maanta adduunkii way isugu soo biyo shaqtay in online laga sameynayo shaqooyinkii dawladda laga shaqeynayay ama the company aad u shaqeynaysay kale waxay noqdeen waa la wada ogaaday maanta inay yihiin waxyaabo adiga uun kugu kooban anigu maanta waan shaqeeyaa dawlad baan u shaqeeyaa lacag fiican baan qaataa laakiin taasi faa'iidadeeda anuun bay igu filan tahay aniga ama waan ka dhoofi karaa ama waan ka noolaan karaa laakiin haddii aan rabo walaalahay inaan u faa'iideeyo ama aan wax ka siiyo ama aan wax u qabto waxay igu taasi ima fasaxayso inta mushaharada la siiyay inaan dadkaasna wax ka siiyo waayo waa loogu talagalay in adigu kugu filaato marka waxaan anigu oran lahaa dadka online ka moogaanina ka maqnaanina hadda maanta adduunku halkaas isugu soo biyashatay fursad aad iyo aad wanaagsan baan idin haynaa kaalay oo dhageysta nala soo qayb gala su'aalihiina oo dhan waa la idinka jawaabaya haddii Ilaahay yiraahdo waa talo aad u qaaliyo waxaan rajeynayaa inaad taladaas ama fariintaasi soo gaadho aniguna waxaan ku darayaa haddii aad hami ama hiigsi aad leedahay waxaan ku haynaa wadada aad ku rumeyn lahayd insha Allah ta'ala Fadxiya walaal waan kaga mahadnaqaynaa waqtiga qaaliga aad naga faa'iideysay sidoo kalena aad soo gaarsiisay fursadan qaaliga aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal Maariya adiga kaaga mahad celinayaa fursadda aad siisay maanta inaad halkaas aan su'aalaha kaaga jawaabo ama walaalahay aan la qaybsado faa'iidooyinka aan ka gaaray iyo hamigayga halku yahay